waxa ugu horeeya kow amniga marka ugu horeysa dadka Soomaaliyeed inay helaan xukuumad cadaalad ah oo ay ku kalsoon yihiin dawladnimo ay rabaan oo ay aaminsan yihiin inay iyagu leeyihiin dawlad ay shacab ku leedahay dhaqaalaha iyo xoolaha ummadda soo gala in loo maareeyo si daacad ah ay dadku ogol yihiin in la isla xisaabtamo shacabka Soomaaliyeed markay og yihiin marka amaanadii aad u dhiibatay inaad xafidayso waa talaabada ugu horeysa horta amniga wax looga qaban karo waxa intaas dheer xukuumadeedu waxay bilowday inay wax ka bedesho qaabkii hore loo shaqeyn jiray waxa mar dhow dhici doonta talaabooyin wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin magaalada Muqdisho sidii nabad loogu soo celin lahaa sidii looga ilaalin lahaa isku socodka tirada badan oo qoriyeysan sidii meel walba iyo degmo walba oo magaaladan kamid u joogi lahaa ciidan amni oo la ogyahay sidii albaab walba laga soo galo magaaladan loo ogaan lahaa cid soo galaysa iyo cid ka baxaysa sidii magaalada banaankeeda looga shaqeyn lahaa laakiin waxa ugu horeeya oo aan qaban doono oo ka duwan wixii hore oo la sameyn jiray waxay tahay shacabka Soomaaliyeed inaan hormuud uga dhigno iyagu inay amniga wax ka qabtaan dawladda iyagu inay maamulaan iyagu inay og yihiin annagu inaan iyaga u shaqeyno oo aan nahay shaqaale u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed qofka aad u shaqeyso marka wuxuu awoodaa inuu shaqada ka fariisiyo marka aadan shaqadaada qabsanin sidaas daraadeed ayaan u bilownay wax la yiraahdo isla xisaabtan wasaaraha loola xisaabtama madaxweynaha loola xisaabtama wasiirada loola xisaabtama waa gartay ammaanka marka laga hadlo caqabada ugu weyn waa al-shabaab oo ognahay dagaalka idin kula jirto qarax haduu ahaan lahaa dilal toogashaday ahaan lahayd iyo waliba weerarada caadiga ee la sameeyo ma isleedahay al-shabaab wad ka guuleysan kartaan aad iyo aad annaga kama guuleysan karna kaliya shacabka Soomaaliyeed al-shabaab ka guuleysan kara wayna bilaabeen sidii uu guuleysan lahaayeen shacabka Soomaaliyeed waxay soo jeesteen dawladnimo waxay soo jeesteen dalkooda inay dib u dhistaan waxay soo jeesteen inay isku kalsoonaadaan annaguna waxaan ka shaqeynaynaa kow dadka Soomaaliyeed inaan runta u sheegno maalin walba shaqadaan ahayn labo caqabadahan hor taagan saddex wax aan damacsanahay inaan sameeyno annagoo kaashanayna shacabka Soomaaliyeed tayeyn doona ciidamada qalabka sida annagu ugu hormari doona dagaalanka al-shabaab u sheegi doona dadka walaalaheena iyo caruurteena inaan lagu gamban karin diin isticmaalayna culumada isticmaalayna dumarka isticmaalayna dhalinyarada isticmaalayna hay'adaha kale oo Soomaaliyeed ayaan annagoo midaysan la dagaali doona al-shabaab way dhamaatay waqtiga lagu gamban jiray been oo lagu leen jiray ummadeena Soomaaliyeed waxaan isku dayi doonaa in annagoo Soomaali ah oo midaysan hadii Ilaahay yiraahdo aan ciidamadeena dhinac ka istaagno xoreynana ka xoreyna shabaab wadankan arrimaha marka laga hadlo ammaan la soo hadal qaado ra'iisul wasaare waxa kamid ah ciidan qaran oo is-aamini karo oo tayaysan inay wali meesha ka maqan yihiin guud ahaan Soomaaliya goormaad isleedahay ciidan qaran oo tayo leh oo loo wada dhan yahay waa la heli karaa waxaan bilaabaynaa inaan aruurino ciidan qaran oo dadka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin kulligood la tayeynayo la qalabeynayo gobolada Soomaaliyeed oo dhan ka wada imaanaya daafici doona soo celin doona sharafta iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed